Assalaamu calaykum. Kusoo dhawow daawada barnaamijkeena ma ogtahay. Barnaamijkeena ma ogtahay waxaan ku soo qaadan doonaa maxaad ka ogtahay afartii dhacday ee ugu la yaabka badnaa adduunka. Haddaba intaanaynu gelin fadlan nagu soo biir oo subscribe saar channelka. haddaba in dhacdadeena koowaad soo qaadanee nin lagu magacaabi jiray Harold Edward Holt oo soo noqday ra'iisul wasaarihii dalka Australia sanadihii 1966 ilaa 1967 ayaa la waayay mar qura isaga oo sanad xilka haya. xilliga madaxweynaha la waayay ayaa waxa ra'iisul wasaaraha la waayay ayaa waxa uu ku maqnaa dabaal kaasi oo ku dabaalinayay bad ku taala dalkaasi Australia. meydkiisana lama hayo ilaa hadda macala meel uu Chania cirib dhigay ra'iisul wasaarahaasi. dhacdadeena labaad aan soo qaadanee ka hor dagaalkii labaad ee adduunka ciidamada badda ee dalka Romania looma soo xiri jirin tababarka marka ay dhammaystaan ilaa hal qof oo guutada ka mid ah uu dhinto. tababarka ayaa aad u adkaa kaasi oo la rabay inay u dulqaataan haddii aan qof dhiman guutadaas looma soo xiri jirin tababarka ilaa dhimasho laga helaa. waxaana taas ka yaab badnayd iyaga oo og ayay ciidanku qoran jireen in ay ka mid noqdaan ciidamadaasi balse caadadaas ayaan hadda jirin. dhacdadeena saddexaadna aan soo qaadanee waxaa jiray diig lagu magacaabi jiray Miracle Mike kaasi oo inta muslimka ahi aamintay inuu ahaa mucjiso rabbaani ah halka dadka kale diimaha kale haysta ay buugaagtooda la yaabka ku dareen. diigan ayaa noolaa 18 bilood isagoo oon madax lahayn oo madaxa laga jaray intii u dhaxaysay 1945 ilaa 1947 waxaana diigaasi lahaa nin lagu magacaabi jiray Lord Olson. dhacdadeena afraadna waxay noqonaysaa wiilkii lagu magacaabi jiray Prince Charles iyo xaaskiisa Diana oo ka dhashay qoys boqortooyo ayaa arooskoodu ku baxay lacag dhan 110 milyan oo doolarka Mareykanka ah. waana arooskii ugu lacagta badnaa abid ee adduunka qof aadamiha dhigto ilaa maantana ma jiro qof iskoorkaasi jabiyay amaba lacag inta la ku qarash gareeyay arooskiisa. barnaamijkeena ma ogtahay waa inaga intaas iyo barnaamijkeena xiga insha Allah.